waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacday munaasabad weyn oo si qurux badan loo soo agaasimay taasi oo noloshu lamaanisay Faysal Shuute Xuseen iyo sidoo kale marwadiisa Yaasmiin Abuukar Xuseen. xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa madasha isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyadoona ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano odayaal dhaqameed dhalinyaro iyo marti sharaf aad u tiro badan oo halkaasi u yimid in farxadda ay la qaybsadaan qoyska cusub. xafladda ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray isla markaana ujeedada munaasabadda iyo soo dhaweynta martida sharaxaad guud ka bixiyay Abuukar Shuute Xuseen. maanta maanta waa maalin weyn, maalin maamuus badan oo leh, waa maalin aynu meelinayno walaalkeen Faysal Shuute Xuseen iyo walaasheen Yaasmiin Abuukar Xuseen. dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay aqoon-yahano caan ah oo ay ka mid yihiin Professor Ali Maxuud Dhalxay sidoo kale Dr. Ali Sheikh Cusmaan Islow waxayna lamaanaha cusub ay u jeediyeen guur khayr qaba iyagoona u soo jeediyay dardaaran dhaxalgal ah oo ku saabsan maareynta iyo dhismaha qoyska. xafladda maanta joogno waxay noqonaysaa xaflad qiimo badan oo macaan badan, marka waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. kan kale waan dardaarmayaa, dardaarankaas waxaan u dirayaa labada qof isu dirsanaysa, gabadheeda iyo wiilkeyga ayaa u diraya. shalay nin walba guriga isu joogay waxaan isdhahayay waa fiican tahay, waan ku jecelahay, waa kaas darbeen u ahaa. caawu bilaabanaya, caawo markii guri la tago ay wuxuu bilaabanayaa jaceylka iyo isnacelka. caawu bilaabanaya waayo nin walba gurigiisu kasoo tagay, gurigaa laisku yimid. marka saa daraaddeed waxaan ka dardaarmayaa loo baahanyahay dulqaad farba, compromise xarigaad. waxaad xaq u leedahay ayaa ka tegaysa ana xaq u leh, maxaa loo soo daahay, maxaa saan loo yeelay, kanaa waxaasi ma jira. haddii la rabo guriga inuu dhaqmo waa in la sameeyaa compromise xarigaad. waxaad xuquuq aad leedahay inaad ka tegtid, marka taas ayuu ku socon karaa. maxaa la yidhaha guriga haddii laga helo labada dhinacba maxaa la yidhaha sawir fara badan waa aad u fiican, laakiinse inta badan waxaa la rabaa inuu hogaamiyo ninka qoyska. walow in badan qoys badan haddaad fiirisid ay habeenka nasirkooda dulqaad fara badan ay sameeyaan, laakiinse sida ay maxaa la yidhahda aayadda qabto waa in maasha maamula uu madax ka noqdaa ninka. marka Faysal fariin waxaan u dirayaa dulqaad fara badan, xuquuq fara badan uu leeyahay, ayuu wax badan oo la sameeyey, aargudasho fara badan in laiska daayo. waxba ma tarayso qofka haddaa aargudatid ama iqaab martitid maxaa ka badan, waxaa ka fiican in maxaa la yidhahdaa waxaa sida inkastoo ayada ay leedahay wajzaaun sayi'atin milaha, laakiin maxaa ka dambeeya macaaf waa saddex faajiru allah. marka waa in la raadiyaa ajirkaas ilaah xaggiisa ah, in la raadiyaa waa in la raadiyaa. laakiinse in qofka aad ka aargudatid ku caysto waxba faa'iido male, laakiinse haddaad ka aamusid waad ka fiican tahay. xadiidkeena walaalkeena Faysal iyo gabadheena walaasheena Yaasmiin, waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala diintiina guudna waa ka dhiga. aayadan qur-aanka haddaan ku furfurtay marada arooska markii dhacaya laga hadlaya. marka aayadan waxay ka hadlaysaa dadka aimada waa ankihu ayaama minkum. dadka aimada waxa laga wadaa dadka omeinaha gabadha omeinaha dhalay oo weyl u ah ayaa la hadlayaa, ama waalid kastaba omeinaha oo gabar dhalay ayaa aayadan la hadlaysaa, ama labada qoys omeinaha aayadan la hadlaysaa inay isu keenaan omeinaha aan shuruud looga dhigin. dadka xoolo iyo dhaqaalo iyo anaa guurka in la fududeeyo ayaa aayadan inaa ka hadlaysaa. marka ilaahay wuxuu leeyahay in yakunuu fuqaraa'a yughnihim allahu min fadlih.
والله واسع عليه هذا يدك فقيرين إلهي سبحانه وتعالى أي غني كدينا إلى هم تدعي إلى بهيو كذا أفرد الله إلى بهيو يكسو زيادة إلى بهيو ما قدرت إني سنقول سبتين سينها فشة يزيد يرتفعت ومنها كل رأى dadka guurkii inay fududeeyaan ee caayada fahmaysaa marka guurka maxaa waaye guurku waa sunno oo min sunnatul anbiyaa waaye ambiyada sunno laga soo gaaray waaye waxaana loo baahan yahay mar walba nidaamkan in la ilaaliyo oo dadkii maxay ahayd waalidkii loo tago oo maxay ahayd gabadhiyaan lala dhulmanin sidaas ayaa loo baahan yahay xafladda ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey qabashada meherka rasmiga ah waxaana lamaanahaasi sharci ah u meheriyey sheekh saciid cabdiraxmaan cali cabdulqaadir xasan barow man yahdihi illaahu falaa mudilla lah waman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإنه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا كلها متاع وخير الدنيا المرأة الصالحة وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم تزودوا الودود ولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة بسم الله والحمد لله والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير ما أمر به كتاب الله الهادي المفرق بين الحلال والحرام يزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان زوجتك وانكحتك ياسمين أبوك الحاجي حسين بوكالة وليها علي إياي ومهرها مصحف كتاب القرآن الكريم $100 أمريكا سليمة من العيوب لازمة في ذمتك ولها المطالبة منك متى شاءت قبلت وتزويجها بالمهر المذكور ما شاء الله بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير